intaas markii laga soo gudbo dad anigu aan kamid ah meeshan markii uu koobaad yimaadaan aadan ugu faraxsanahay maqalkeeda waa qabna laakiin ilaahay nooma qadarin caawa ka hor inaan nimaado alxamdulillah ilaaha ku mahadsan intaas markaan ka gudubno imaamka iyo ugaaska iyo akhyaarta ka horeysa sheegtay aadan ugu xunnahay waxa meesha ka dhacay dhimashada iyo dhaawacaba inta dhimato Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah caafiyo waxaana keenay xumaan aan ka xunnahay waxa dhacay waaye oo aan rabno ilaahayna ka baryayna meesha inay ku joogsadaan qabiilkan Yuusuf Galmaax la yiraahdo inuu qabiil nabadeed yahay oo nabad rabo ninna lama weydiinayo laakiin colaado kula tashamayso sidii ku timaadaba waa imaanaysa haddana in la baadi goodo nabadii waa lagu khasban yahay marka waxaan rabnaa qodobka koobaad xabad joojin in la sameeyo ciidankiina la kala qaado gogol nabadeed la fidiyo wixii dhacay xalkoodii la gaaro ilaahay idankiisa dhaqanka waa laga habboon yahay laakiin akhyaarti haddaan wax uga dheelay iyaga gadaal ka suubsahaye laakiin meel hadday wax ka dhacaan dariiqii la mari jiray in la maro dhiig waa dhiig walaal waa dhiig muslim maantana baahi looma qabo dhiig inuu daato intii naga dhacdaa ceeb iyo culays noogu filan dadkan hadda yimiday runtii waxa ugu muhiimsan ay u yimideen waa intaan in marka arrintaas aad naga aqbashiin oo ay dhacdo xabad joojin oo ciidamadii la kala qaado gogol nabadeed la galo hawshii la xalliyo annagoo og oo wasiiradu ayna soo gaarsiiyeen tabashooyinkiina haddana meesha wax ka bilaabo jiraan meel aan ahayn wax lagama bilaabi karo waxa aad tabanaysiina waxaan diyaar u nahay inaan qaadno hirgelintooda dadaal badan ku bixino ilaahay subxaanahu wa tacaala kaashano annagoo dhan iskaashano si ay u hirgalaan maanta qof walba Soomaaliya ama deegaankan ha joogo ama meel kale ha joogo nabada u baahan nabadaasuna waxay u baahan tahay shaqo nabadda midna dadku ayaga abuuraan oo ka shaqeeyaan midna dawladda ka shaqeysa dadku mid ay ka shaqeeyaan waa mid aad haysateen oo haddana aan raadinayn taas marka dadadan la kula tashanin oo dhalinyaro ah dhaawici kara midda dawladda waxay leedahay nidaam waxay leedahay boolis waxay leedahay maxkamad waxay leedahay hadii la waayo xataa booliska hadii la iskala baxo nima la yiraahdo daraawish hadii la iskala sii baxo military la isla sii aadaya waaga ma gaarin dawladdiina waa la socotiin wixii ciidan lahaay waxay ku mashquulsan yihiin nimankaas al-shabaab la dagaalankooda ku mashquulsan yihiin in meel walba askari la geeyo oo boolis tago oo maxkamadu tagto waa waxa dawladnimadu ay dalbanayso laakiin waqtigeeda ay qaadanayaan wixii laga maarmi waayo oo fulinta looga maarmi waayo dawladdan la kaashanayna insha Allah tabaaraka wa tacaala in la fuliyana ilaahay idankiisa ku dadaali doonaa laakiin warka aan ugu nimada warkaas waaye aad iyo aad u mahadsan isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus leh daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital